dad la is ag dhigi karo oo la is barbar dhigi karo horta ma idin iyagu waxay ku jiraan dawlad dhis idinku waxa ku jirtaan dal dhis dekado bundooyin dekadii barbarmaan dhooto marka arkay Singapore baa moodaysa bundadii halakan meeshii la oran jiray togi dacarbul waxaan arkay oo moodayso shiinihii tii oo Hong Kong iyo Macau isugu xiray bunda u dhow laga taagay baa arkay waxaan arkay magaaladii Hargeysa markay jaamka noqotay madaxweynihii oo wado ilaa 30 kilomitir miyaa la yiri magaalada dhinaceeda marayso labahaad iyo labahaada oo Hargeysa bypass miyaa lagu sheegay halka gawaaridu magaalada gali maayaan xagga ka laabanaya Dubai baan ku arki jiray maraan joogay magaalada wado imaaraat shaaric imaaraat dhaho gaarigu abdoy marka soo baxo shaaric magaalada ma soo dhexmari jirin shaaric imaaraat buu qaadi jiray gawaaridu magaalada dhinacaasi ka mari jireen si saxmad magaalada looga yareeyo horta halkaas maraysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى الصوماليين ودون وسلامي ميل كستا أو أي دافها دنيا كجسوجيهين مقاحدي وحي أحرن تحي أو عن هذا ديه جلين وعي جلين وانو أو أيسن كم مرنين رالي جلين حلقة وسو جدينا يا كرسو ماللان كوا صباع أو دبدي جيور كونفرنس وبدن وحي أرندونان أو ذيجي مموسى ما أنت حوجا تاج ودقي وحجزوا إنه على حق العيد كي كهلا ويقول ليهين إن هذا الكا يفرين تا مهم كا يعني نيسو قد بينا يو حق أي نسهان لكن وابا كهر دعنا وحلينا هاي ورورتها يفرننا هذا لكن يتوه ميسان وليهين أضيي سومالا بومانتو حكيلي وري الحمد لله رب العالمين عيب ماها انتاسي وحلا يسكو عاينا ماها يوروب بانجوغا دولة الشيء عير كهلا سومالان ودالكيغا ما أنت هدان حوغا كهلاي الحمد لله كما سهيو لكن انت سام بإذن الله هيبا وابا وحا صوت دان باوغا هيو أدير وين كهر دقي هير سومالان مركا دادكا وقت نسكاقلو من مينو horta ninka in la hadlaya baan rabaa inaan idin sheego shiina culay meelahaas ka barateen shiina culay waa kuma shiina culay magaalo la yiraahdo Buraan oo gobolka Sanaag ku taala baan dugsiga hoose ka bilaabay casharkii ugu horeeyay oo la ii dhigo been sheegmayo tamaashiirtii la igu xariiqay Hargeysa laga soo dhiibay magaalada anoo yar waxaan xasuustaa nin oday oo caaqil Allah u naxariisto hadda dhinto Maxamuud Gaani la oran jiray baa Hargeysa naga soo aaday ريالي مدحويني سومالان بولا كلمay wuu wareystay wuxuu yiri Buraan reer Buraan baahida ugu badan ay qabaan maxay tahay wuxuu yiri magaaladu MC Ajmale meel hooyadu ku dhasho oo ilmaha maxaa ku yiraahdaa hooyadii dhanaanka rug caafimaad male $30,000 buu soo dhiibay MCH ka kaliya ee Buraan maanta ka taagan xilligaas la dhisay Somaliland khaasatan Hargeysa markii ugu dambeysay 2014 سميل قاله أو ماموس له بمدحتوه اللي يقابله نيل أورنج له حرس حاج علي حرس قاطع أو تقانين أو صاحب كي أو مدح إيسار باسيل يقان أو ميل قاله مدحتوه اللي يقابله هدي سوريا تاي هدي ماموس كلا تاي ما شاء الله لقى ما هالكرو هرتني كإذا لها الله يا وانين وحاسة وانين إرين دبقنا يا دلك وحكله وحوي هدي وانو يوعد بقى أبال أقول ليه نكى رجع أبال قدئه ما أنت دوني حبا يراتي وحن إنه نكسر عليه بران الدين قرن المال لو تحرك هاي مدحين مصبحي أو فريا امتحان مدي فريا عركاي أو وحليه هاي امتحان مدي ما أنت حلقة فري أو أرضي دو أفر السنيان لو يعدوا إلى بران بيري أنت أورك كويسو جودهان سومالنا مكفر من امتحان إلى بران ساق وكسر إلى لو يعدوا مركب موسى قرنيا dadkina yaraniida garanay baa laga yaabaa waxaan rabaa marka fariinteeda inaan u galo baa rabaa horta waan raali gelinayaa waxaan idin raali gelinayaa fulay waxaan timoog waxa weeye halka dhowr jeer baa idin ka duray wax kale idin kuma durayn dad fiican baa tihiin dad Soomaalinimo ku fiican baa tihiin dhinac walba laakiin arinta gooniishu taaga baa adigu ka xajimooda waxaan war baasha war dadku midnimo wax ku yahay taasaan dhowr jeer idin ku dhaliilay إذا كنت دوا أكتين وحكلوا هذا الجذوب حتى إيه هيسان ما جرتوا أنا تاهين واحد مقل جري نين الجل حد نس جو كاوي وحو كاوي هاي الجل حد سجاشن يكودي مركز جوسنا سين وحركتين
ciyowgii habeen dhawaaqa baa la yiri wuxuu ka caawdu dareemay waxa ka cawateen oo banaanka uga dhacdeen oo u goosateen oo dalka maanta u noqoteen oo 30 sano dawladda gaarka oo ictiraafka naawileysa u tiin maanta aan tiiso arkay oo wallahi oo billahi maanta baan tiiso arkay arrintii midnimada anu wali waa aaminsanahay CBB ha igu noqonin qofka aragtidiisa waa lagu ixtiraamaa qof kasta wuxuu aaminsan yahay ha khaldana taa saxsanaato xaaladda maanta lagu jiro anu Soomaaliland muuso Muqdisho tag oo Soomaaliya wax la qaybso oo wax la dhiso anaan ku taleen war halkaaga joog nimca ku jirta si haysan leeyahay laakiin hadii jawigu isbedelo oo Yuruba iyadoo 30 dala bay midowday nidaam lagu midoobi karo oo cadaaliya oo cid walba waxay xaq u leedahay kaga heli karto la helayo anu midnimada waa aaminsan waxaan aaminsanahay dadku inuu midnimo xaq ku yahay maanta waxaan idin kala hadlayaa halka waxa weeye warnimayo nimca haysataan war horumar baa haysataan war dal baa haysataan war dawladnimo haysataan dadku inta ma wada haysto nimcadana waxa la yiri barwaaqada la caashiyo ilaah waa burburiya waxa laga yaabaa idinka inaysan idin muuqan laakiin dadka kale waa u muuqataa taasaan waxaan rabaa marka inaan maanta inay taabto baan doonayaa dadka koonfur jooga oo la rabo in la idin lagu xiro maanta meesha ay marayaan waa meeshii aan marayseen 1991 labadii saddexdii waxay ku jiraan dawlad dhisbay ku jiraan waa ku fayaan waa kacayaan waxa arkaysaan ciidamadii hadda la yabyabay oo muddada dheer la soo dhisayay oo beelbeelu kala fadhiya oo kala yaacaya hubkii baa wuxuu gacanta ugu jiraa beelaha inta dawladdu haysto hub iyo inta qabaa'ilku haysto waxa badan inta qabaa'ilku haysto 94 baa Soomaaliland hubka laga dhigaa umaleynaya qof aan dawladda baa qori haysata qabiil qori haysta ma jiro ciidan qaran Soomaaliland wax walba waa ka dhacaan riyaala ku darsaday siilaanya ku darsaday karaysisyo badan baa ka dhacay mucaarad xisbiye mucaarad oo inta qeynlaya waa arkay wali ma arkin ciidankii qaranka oo siyaasad ku milan wali ma arkin taliye ciidan oo goosanaya oo meel u goosanaya wali ma arkin madaxweynihii qaranka riyaale oo ciidankii qaranka u adeegsanaya inuu xisbigii kulmiye ku caburiyo oo ku xiro wali ma arkin isagoo u adeegsanaya inay guriga siilaanyo u weeraraan ama siilaanyo u adeegsanaya inuu ku dhibo ciro ma arkin haddii waxay ka taagan tahay Muqdisho waatan keentay ciidankii marka madaxweynuhu si khaldan u adeegsaday inay iyaguna maxaa ku dhahday reerkoodii raaceen oo dhaheen maxaa anaga dadkayga nalo ku karbaashiya marka dad la is ag dhigi karo oo la is barbar dhigi karo horta ma idin iyagu waxay ku jiraan dawlad dhis idinku waxa ku jirtaan dal dhis dekado bundooyin dekadii barbarmaan dhooto marka arkay Singapore baa moodaysa bundadii halakan meeshii la oran jiray togi dacarbul waxaan arkay oo moodayso shiinihii tii oo Hong Kong iyo Macau isugu xiray bunda u dhow laga taagay baa arkay waxaan arkay magaaladii Hargeysa markay jaamka noqotay madaxweynihii oo wado ilaa 30 kilomitir miyaa la yiri magaalada dhinaceeda marayso labahaada oo Hargeysa bypass miyaa lagu sheegay halka gawaaridu magaalada gali maayaan xagga ka laabanaya Dubai baan ku arki jiray maraan joogay magaalada wado imaaraat shaaric imaaraat dhaho gaarigu abdoy marka soo baxo shaaric magaalada ma soo dhexmari jirin shaaric imaaraat buu qaadi jiray gawaaridu magaalada dhinacaasi ka mari jireen si saxmad magaalada looga yarayo horta halkaas maraysa boorada warkooda daa 2014 ba Hargeysa tagay boorada markaas Kuwait deeq laga soo qaaday baa lagu dhisay waaba dhisnaayeen baxiliga cigaal waaba dhisnaa xiliga international airport waa dhisnaa marka Soomaaliya maanta reer koonfureed waxay maanta xabadda isugu haystaan oo xaaladoodu ay qiriyo qub iyo qac u taagan tahay waa doorashadii baa la isku hayaa oo dib dhacday oo la isku hayo idinka waxa ogtiin waa tii baarlamaanka la isku hayaa
baarlamaanka waliba mid dadbana mid toosama baa la isku haya qaabkee lagu soo doortaa halka xagga hala dhigo 100 ha laga dhigo 50 ha laga dhigo waa wax oo sagaar ma cabtaa mise ma cabto baa la isku haya idinku tii baarlamaanka hadda qabsanaysaan soddonka May in loo dareerayaan u malaynaya dhowr iyo 10 cisha ka harsan ololaa socda xadaarad ba ololihinu ku socda TV-yadan ka daawada musharax hadlaya dad cod ka doonaya gudoomiye xisbiyo galbinaya xaafad hebel la tagayo baan ka arkaa kaararka waa hore la qaatay ololihinu waa kii Mareykan xadaarad muqdisho maxaa ka socda wadooyinkii la goynayo madaxweynuhu markuu ku darsaday doorashadii qaban waayay buuqii qabtii lagu kaco shacabkii xanaaqo wadooyinkii la gooyo beesha caalamka ku daashay dhabanada haystaan wixii muddada dheer la soo kabayay oo maanta wuxuu ku taagan yahay ula booca ku taagan halkaas ay marayaan idinkana tiina habar ku hordiyaysa arkamis habar ku hordiyaysa sababtoo ah waa nidaam dimuqraadiya xisbiye leh horumarsan kana waa nidaam qabali ah la kabay idinku deeq dibadeed heli meysaan ciidamo ajnabi ma joogo idin qaban mayaan gaalo wax laga sugimayo wixina idinka qabsanay idinka isku tashaday raganimo iyaga shisheey balaayo 200 oo gacmood baa ku jirta farmaajo maalintu ku darsaday maalintu ku xigtay wuxuu isku shubay meesha la leeyahay Congo oo aan garanaysan dibta iyo hoog iyo halaaga ka jira buu isku shubay muxuu isugu shubay inuu ku darsiga dhaho waa ku darsaday Afrikaano idimo waa ku darstaane shacabka iga celiye ma dhicin ciidanka ku kacay idinka laakiinse wixiina idinka qabsanaya gacan dibadeed in kuma jirto idinku isriixa dimuqraadiyadda adduunka waa la isku riixriixa ceeb maaha marka wardad horumaray baa tihiin waxaan wallahi idinka raali gelinayaa dhowr jeer oo halka idinkaga dhigay Soomaali la qaybsada la midooba la qaybsada midnimadii waa aaminsanahay laakiin dadka hadda jooga waxba lama qaybsan kartaan sababtoo ah dawladda maanta Soomaaliya ka jirta waa unstable waa unpredictable waa waxaan deganayn oo la saadaalin karin waxaan deganayn oo aadan saadaalin karin aniga markaadan isaadaalin karin hadaa gurigeyga igu timaado inaan madarq ku dhufanayo iyo inaan intaan ku soo dhaweeyo koob kafee ku shubayo de labada ma ii soo dhawaanaysid lama saadaalin karo koonfur lama saadaalin karo hadaa 2 sano ka hor midnimo ogolaan lahaydeen oo tagi lahaydeen maanta maxaa ku jiri lahaydeen sida farmaajo uu bam galmadu ku dhufo madaxweynaha rabto keen xaaf eri bam ku dhufo meesha leeyahay koonfur galbeed ku dhufo musharaxiinta xirxir lafta gareen geyso bam ku dhufo meesha leeyahay muxuu ahaa kismaayo qacde axmed madoobe cuna qabateen saar dani faracid yeelaha kaga baxsado puntland halka ka firiglayso kuwaas maanta kamid ahaan lahaydeen alxamdulillaah rabbil caalamiin talada hayseen wixii 93 iyo 3 labadii idin muuqday anu maanta arkay Soomaali waagay dad noqonayso waxaan ku iru qofka kabahaaga u dhiibanayso kuwiisa la eega markay kaba fiican gashadaan waaga calale laakiin maanta nabadiina horumarkiina haysta dubbe iyo afar lamida oo shaqo tagay kuwa badan oo reer shaqo hadda ka shaqeeya New York waa la soo helaya dawladda Jarmalka jooga kuwa badan oo ka shaqeeya ama turjumaanaha aado ama dawladda meel kale ha uga shaqeeyo ama hadduu doono xildhibaan ha u tartamo waa caadi waa la soo helaya Scandinavian-ka inta waxa arkaya kuwa reer Hargeysa goladeegan u tartamaya ha ka tartameen shida male ha shaqo tageen iyagana waxaan leenahay bilaa calaykum iska shaqaysta laakiin dadka horumaray oo ceebta iyo cambaaraynta la daba joogtaan ka daayay dadka dekada halka ka muuqata iyo jidadka iyo bundooyinka dhisanaya war hoos ha u dhiganina intaasan iyagana leeyahay marka horumar baa haysataan dimuqraadiyad baa haysataan dawlad baa haysataan law and order 91 la dhagax dhigay 93 beelaha hubka laga qaaday afartii la isku dumay 2001 dimuqraadiyad iyo one man one vote u dhaqaaqday taasa haysataan dad badan oo waxaan arkay hadda farmaajo taageersano si ay muddo kordhinta ugu qiirsameeyaan waxay dhahan
سيلان يا كدر صدي ريال كدر صدي سومالان كدر سيما بدن بقى جرت لبدو markay ku darsamayeen wax loo jigo oo loo qaateena bay ahayd barkay wan ma uu fududeen diiwaan gelinta dhinay serverada xumaa maalin waxba la waday wax loo jigo loo qaateena ahayd isagu muxuu ugu darsanayaa 4 sano hal talaaba ma qaadin idinka ku darsiimadiinu taasi ahayd riyaala idin soo xukumay riyaale ba idin soo xukumay 8 sano miyuu Soomaaliland madaxweyne ka ahaa mise 10 sano 2001 ilaa iyo 2010 waa 9 sano buu madaxweyne ka ahaa Soomaaliland riyaale waa ku darsaday siilaanyo doorashadu kaga helay 80 cod baa kaga guuleysatay baa la yiri adeerkay cadami buu ahaa kii guddiga doorashada madaxda ka ahaa oo yiri siilaanyo halka ka bax 80 cod baa lagaaga adkaaday waa 80 cod baa lagaaga adkaaday iyadoo la og yahay Afrikaan waa la yaqaanaa Afrikaan ninka xukunka haya hadduu codad ku guuleysto doorashada fi shay waa la isku laayaa siilaanyo ma oran hargeysa unukaale ya riyaale boorama aad ma oran waa ku samray waa aqbalay natiijadii 5 sano ka bacdina baridu dhulka uu dhuftay riyaale isaguna wuxuu yiri aqbaltu xilku ku wareeji dawladnimadaas haysataan halkaasa mareysaan maanta inaan koonfur idin barbar dhigo raalina ka ahaada dawladdaas haysataan maanta laga bilaabo horumarkiina saan sheegi doona insha Allah taala sababtoo waa idin garownay la idin ma qaban karo koonfur lugaa la idin ma hayn karo la idin ma qaban karo ciidamadiina wakaa halkaas ay joogan xidiga leeyihiin sharaf leeyihiin hal mid oo siyaasad ku milan oo ka hadlaya ma arag hal mid oo reerkooda u caroodo u goostay ma arkin hasha ma arkin marka war nimcadeena ku fara adayga ninka idin hadlayana oo wacdiga iyo waanada idin soo jeedinayna waa nin abaalka ogtiino aan idin sheegay ku leedihiin nin raga abaal guda ha soo daaho ha yaraado maanta iskarto isiri war dadkaaga iyo dalkaaga war xogaa ku celi waa ninka weey marka mid meel kale laga soo diray oo meel kale laga soo bahalkayay kuwa badan hadda hadalkayga inay si ay u nasahaan waa kana dambu leeyahay wardana in ka leeyahayna ma jirto idin mana soo socdo waa dalkayga hadaa imanayo cid igama xigto laakiin wallaana haddana u soo socon tan gaar ah in ka leeyahay ma jirto musharaxan wata ma jiro waxa weeye kan doorta idin oran mayo kan ha dooranin oran mayo si guud maarad iyo maxaafid haday kulmiyad tahay haday u cid tahay haday wadan tahay si guud ah in ku hambalyeynaya nidaam ba haystaan ma sha Allah waa la idin kuuyayaa bisin kana qabsada alxamdulillah na dhahaya inta idin ka dhimanna ilaahay idinki waa helisan waa la idin garaabaya annagii baaba idin garawnay Soomaalida in la ahayn oo in ku taaganayn oo maalin walba halka waxa idin la soo fadhiyi jirnay jooga xagga aada koonfur ba idin garaabayna waa imanaysa qaramada midoobe inay garaaban bay imanaysa midooga Afrika inuu garaaba la imanaya jaamacad carabtu inay garaabtay la imanaya maxay idin ku garaabaysa dad baatiin wax dhisanaya oo horumaray oo hore u socday baatiin koonfuratana dib u socod wixii ciidan la soo bahalkeeyay ninkii madaxweynaha ahaa si khaldan buu adeegsaday dadkii buu ku karbaashay iyagiina qabiil bay noqdeen waa ka hoos baxeen dadkaas la idin qaban karaa gaaladu dad aqal weey waa la daawanayaa milafkiinu maanta meel fiican buu yaala doorashadaas in ku qabsatana waa la eegayaa si fiican waa idin ku socotaa horena waa u qabsan jirteen tanna ilaahay si fiican idin ku dhameeyo horumar baa haysataan daldis baa maanta mareysaan wadooyinka balaariya jidadka balaariya dekada balaariya ma sha Allah waa in salaamaya sanad guuradiina waa soo socotaa waa ninkii shiina culayha oo idin leh ilaahay idin barakeeyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh